الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنجنير مبارك محمد. عشر كيني مانتا وحكو سابسن ياهي simple past tense وتنسي شنات برنامج وحو نقونا تنسي اللوات لكن هذا تنسي شنات كالجنة. Okay, simple past tense and is used for an action which happened in the past time. Simple past tense waxaa loo isticmaalaa is used for an action fal which happened kaasoo dhacay in the past time waqtiga lasoo dhaafay. Simple past tense wuxuu ka hadlayaa wax lasoo dhaafay ee laga soo tegay waqti hore dhacay. qaacidadiisa waxaa waaye subject plus verb plus past plus object. Marka I, we, you, they, he, she, it intaan oo dhan markii su'aal loo bedelayo wuxuu qaadan doonaa did. Okay, marka tusaale aan usii gudagalno marka examples statementiga marka tusaalaha koowaad I played football last week. I played waxaana cayaaray football kubadda cagta last week istimaankii lasoo dhaafay ama isbuucii lasoo dhaafay. marka hadda inta ficilka I waa subjectihii, play waa verbkii. marka played asalkiisa wuxuu ahaa verbka play, marka waxaa la raacsiiyey ed marka meeshaad ku aragto waxaa waaye verbka markii la raacsiiyo wuxuu isku bedelayaa bahalkaas tensigaas waa simple past tense, waa waxa lasoo dhaafay. I played football last week istimaankii lasoo dhaafay ama isbuucii lasoo dhaafay waxaan cayaaray kubadda cagta. tusaalaha labaad he ate lunch yesterday. He ate wuxuu cunay lunch qado yesterday shalay. marka hadda ate asalkiisa verbkan asalkiisa wuxuu ahaa eat, wuxuu ka yimid eat oo cunid ah. markii past loo bedelayo wuxuu noqonayaa ate waa cunay, ate waa past. He ate lunch yesterday shalay ayuu qadadiisa cunay ama shalay ayuu qadiyay. Okay, tusaalaha saddexaad she washed the clothes. She ayada washed way dhaqday the clothes dharkii. Okay, marka washed asalkiisa verbkan wuxuu ahaa wash oo ah dhaqid. marka ed markii la raacsiiyo marka wuxuu isku bedelayaa past tense. Okay, she washed the clothes. She ayada washed waxay dhaqday the clothes dharkii. markaan qaybta waxaan aadaynaa markaan markii laga dhigayo question. Okay, question markii laga dhigayo marka waxaan dhahnay waxaan isticmaali doonaa did I play football last week? isbuucii lasoo dhaafay banooni maana cayaaray ama kubadda cagta maana cayaaray. Okay, did I play football last week? isbuucii lasoo dhaafay ama istimaankii lasoo dhaafay banooni maana cayaaray ama banooni maana dhelay. Okay, tusaalaha labaad did he eat lunch yesterday? marka hadda aan xusuusiyo mid hore play يعني سؤال markii loo bedelayo verbka play asalkiisa wuxuu ahaa played markii past uu yahay. marka asoo past ah markii su'aal laga dhigayo played asalkiisa loo soo celinaa oo ah verbka asalkiisa loo soo celinaa wuxuu noqonaa marka play. Did I play football last week? Okay, tusaalaha labaad did he eat waxay ahayd asalkeeda past markii laga dhigayo waxay ahayd ate markii statement ay tahay. question markii laga dhigayo marka waxay isku bedelaan eat maadaama did mission la keenay did oo ah past. Okay, did he eat lunch yesterday? shalay quraac muu cunay. Sorry, waxaan ka wadaa qado. Did he eat lunch yesterday? shalay ma qadiyay. Did he eat lunch yesterday? shalay qado miyuu cunay. Okay, su'aalaha saddexaad did she wash the clothes? Did she wash fiiri hadda eat markii ay tahay statement caadi ah pastiga markii la isticmaalayo oo su'aal laga dhigayna waxay ahayd 8 laakiin hadda eat فعل كي verb سيس وصنعه eat
wash sidoo kale washed ed raacsaneed markay statement ay ahayd marka question markii laga dhigaa marka waxay isku bedelaysaa wash waa verbkiisa loo soo celina asalkiisa did she wash the clothes dharka miyay dhaqday did she wash the clothes did she wash ma dhaqday the clothes dharka miyay dhaqday did she wash ma dhaqday the clothes dharka ma dhaqday okay waxaan filayaa waxaa noo haray qaybta negative-ka sorry waxaa noo haray marka markii loo bedelayo negative markii loo bedelayo marka waxaa kusoo biiray keliya hadda not I did not play football last week isbuucii lasoo dhaafay banooni ma aan la ciyaarin okay I did not marka waxaa ku cusub meeshaan not oo ah negative I didn't sidoo kale waxaad isticmaali kartaa I did not and I didn't labadaba isku mid didn't waa did not oo lasoo gaabiyey I did not play football last week isbuucii lasoo dhaafay banooni ma aan ciyaarin okay he did not eat lunch yesterday shalay muusan khadin ama khada muusan cunin shalay example-ka saddexaad she did not wash ma aysan dhaqin the clothes dharka ayada she did not wash ma aysan dhaqin the clothes dharka she did not wash the clothes dharkii ma aysan dhaqin okay waxaan filayaa in si fiican loo fahmay casharkeeni maanta ay ku saabsanaa simple past tense halkan ayuu ku ogyahay insha Allah ilowin saad uga socdo casharada kale ee muhiimka fadlan haddaad rabto faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan simple past tense waxaad ka raadsan kartaa buugaagta grammarka insha Allah marka fadlan ha ilowin subscribe-ga channelka si aad uga socdo casharada kale ee soo socda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh